kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada halqada shanaad ee bandhiga qaran kaasi oo diiradda ku saarno dawlad wanaagga dib u heshiisiinta daryeelka bulshada waxbarashada dhaqaalaha deganaanshaha iyo nabadda bandhigan oo aad ka daawataan telefishinka STN ayaynu ku martiqaadnaa mas-uuliyiin uu quseeyo hadba mawduuc aynu ka doodayno dhaqaalaha oo dib loo dhiso ayaa ka dhigan fursadaha shaqada oo kordha dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa wada qorshayaal lagu hagaajinayo dhaqaalaha 2 sano ka hor muqdisho waxay martigelisay shirkii horumarinta iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha 3,000 oo dhalinyaro ah oo ay shaqo siisay xukuumadda haatan u diyaar garowga dib u habeynta lacagta deymaha la dhaafay iyo dadaalo kale ayaa ah astaanta wax ka qabashada in dib loo dhiso dhaqaalaha waddanka barnaamijka bandhiga ee maanta ayaynu ku dul istaagaynaa haddii hanaanka dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya uu ku socdo wadadii loo baahnaa waxaan goordhow idiin soo gudbin doonaa waraysi aynu la yeelanay aqoon-yahan si dhow ula socda hanaanka soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya balse marka hore aan idinla wadaago waxyaabaha ku jira bandhigeena dhaqaalaha dalka in sare loo qaado waa wax sahlan marka loo fiiriyo siyaabaha gobol waxaa ka mid ah habka lagu qaadi karo in canshuurta la helaa oo ay ku dhacdo gacan aamina waa ka mid qaabka dhaqaalaha kor loogu qaadi karo waxaa ka mid ah dadka in muxuu ahaaye wacyigelin badan lagu siiyo inay bixiyaan maaragtay canshuuraha inay bixiyaan lacago tabarucaad ah oo qaranka dib loogu dhisayo kharash badan oo ku bixi lahaa dhismo badan in xoogga dadka la geliyo oo lagu dabero sida hadda barnaamijka isxilqaam oo kale oo aad loo ballaariyo maaragtay tiyaatarka kaliya iyo ma ahan meelo khaas ah meelaha dhismayaasha dawladda oo dhan iyo kuwa cusub iyo kuwa hore intaba maaragtay dhaqaale badan lagu badbaadiyo waa qaabab wanaagsan oo kor loogu qaadi karo dhaqaalaha weeye dhaqaalaha dalka waxaa lagu kobcin karaa waa dawladda barnaamij abuurta dadka beerihii dadkii lagu celiyo shaqooyinka hore beeraha la sameeyo dhaqaalaha cashuuraha iyo wax soo saarka la kordhiyo waxyaalahaas oo baan oran karaa in wax badan laga bedeli karo dhaqaalaha dalka ma jirto dal adduunka lama arag dal quudin uun hay'ado ajnabi ay quudiyaan oo dawladda ku tirsanaa nasiib darro inagu waxaan moodaa dad inaynu xaaladdeenu ku soo aruurtay inaanu dal hebel iyo dawladda wax ka sugno dadku iyagaa la rabaa inay wax sameeyaan oo dhaqaalaha sameeyaan oo aqbalaan cashuur qaadidda beeraha waxyaalahaas oo kale kalluumaysiga oo kale hadda waxaan si gaar ugu mahad celinayaa barnaamij hadda la bilaabay oo wasaaradda kalluumaysiga oo kale sidii badaheennii oo kale loo dhici jiray oo kale oo hadda ay dawladdu bixinaysa laysinkii ogolaanshadiyadu ay bixinayso dhaqaalaha dalka horta waxaa sare loogu qaadi karaa waxay tahay marka ugu horeysa dalka gal kasta aad arkayso ee maanta hodan ah wuxuu dhaqaale ku gaaray marka ugu horeysa waa macnaha canshuurtii dalka uu u baahnaa ee la bixiyo sababtoo kaasi wuxuu horumariyaa waa dalka wuxuu dib u kaabaa waa kaabihii dhaqaalaha dalka canshuurta dalka uu lahaa in la bixiyo haddii dalkaasi uusan canshuurta uusan bixinin dhaqaalihiisu maayo korna muu qaad maayo mideeda kale waxaa kale oo dhaqaalaha sare u qaadaa waxay tahay in la badiyo beerashadii dalka beerihii dhaqaalihii dalka dib loo geliyo dalagii lasoo beerto kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshadeenna oo nala wadaagay aragtidooda sidoo kale bandhigeenna waxaa ku jira sida dhabtee yani dhaqaalahii nabadgelyada waa laba shay isku xiran yani waddan horumar ma gaari kara mana hiigsan karayo ilaa la taabtaa marka isbedelkaas iyo nabadgelyadaas soo kobcayso waxay fursad u tahay dad badan oo Soomaali iyo dad badan oo ajnabi inay waddanka ku soo noqdaan investment waddanka gashtaan waddankiina diidib mataqaana uu ku samaysto marka waxay ka mid tahay waxyaalaha mataqaanaa dhiirigelin karaya ama dadkii saameyn ku yeelanaya inay waddanka dhaqaale gashtaan imaadaan ka shaqeeyaan xirfadahooda kuwa waddanka joogiyo kuwa banaanka jiraba ilmaada marka dhinac walba markii laga fiiriyo waxaas leeyahay saameyn weyn bay ku yeelan kartaa qofka hataa naftirkiisa inuu ku fikiro Soomaaliya inta yimaado ka shaqeysto ganacsi sameeyo ayadoo ay adag tahay fursadaha iyo mataqaanaa dhibaatada jirta qaar dadka badan ku adkaanayso laakiin isbedelka nabadgelyada xagga wuxuu sahlayaa qofkii inuu mataqaanaa ka faa'iideysto marka faa'iidada ugu jirta badan waxay tahay dad inta badan hadda example waxaa tusaale fiican u ah dawladda Turkiga oo kaleeto waqti dhaqaalaha Soomaaliya nabadgelyada u xun tahay
bay waxay ku dhiiradeen inay soomaaliya maalgashtaan diyaaradooda timaado taa marka waxay sahashay markii hore oo bilawga ahayd laga yaabo inay xoogaa struggle iyo dhibaato badan kala kulmeen laakiin marka dib runtii soomaalidan aad bay uga faa'iiday ayagana aad bay uga faa'iideen kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xasan oo maanta marti noogu ah bandhigeenna balse marka hore bandhigeenna aan ku bilaawno qaar ka mid a dadweynaha oo aynu weydiinay sidee sare loogu qaadi karaa dhaqaalaha soomaaliya waana kuwan fikradahooda bismillahi alxamdulilah salaatu wasalaamu ala rasuulilah anoo ku bilaabaya magacayga maxamed cabdi yuusuf ka mid a bulshada magaalada muqdisho wallaahi marka hore ugu mahad celinaya telefishinka art s t n barnaamijkiisa oo fursadda noo siiyey su-aashaada haddaynu soo noqo su-aashaadi weydiisay oo ah seebaha dhaqaalaha dalka lagu kobcin karaa dhaqaalaha dalka waxaa lagu kobcin karaa waa dowladda brograam abuurta dadka beerihii dadkii lagu celiyo shaqooyinka hore beerahanka la sameeyo dhaqaalaha cashuuraha iyo wax soo saarka oo la kordhiyo waxyaalahaasoo baan odhan karaa in wax badan laga bedeli karo dhaqaalaha dalka ma jirto dal dee adduunka lama arag dal quudin uun de hay-ado ajunabi ay quudiyaan oo dabadda ku tirsanaado waa nasiib daro innaga waxaad moodaa dad inaynu xaaladdeenu ku soo aruurtay inaanu dal hebel iyo dowladdo wax ka sugno dadku iyagaa la rabaa inay wax sameeyaan oo dhaqaalaha sameeyaan oo aqbalaan cashuur qaadidda beeraha waxyaalahaasoo kale kalluumaysiga oo kale hadda waxaan si gaar ugu mahad celinayaa brograam hadda la bilaabay oo wasaaradda kalluumaysiga oo kale sidii badaheennii oo kale loo dhici jiro oo kale oo hadda ay dowladdu bixinaysa laysinkii ogolaanshiyadu ay bixinayso awal waxaan arki jirnay 400 milyan baa sanadkii laga qaadan jiray xeebaheenna laakiin hadda waxaad moodaa cashuurtii dowladda dhexe bankiga kusoo dhacayso wasaaradda kalluumaysiga khayraadka badda uga mahad celinaynaa oo wasiirkeeda waa horumar fiican oo la gaadhay laakiin weli waxaad moodaa dad inay caqabada jiraan oo dadku aysan aqbalsanayn horumarka iyo dowladda rajadan ay dadka gelisay oo uga mahad celinaynaa dadaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laakiin in la xagal daacinayaad moodaa waxaa qabada ay jiraan hadda oo dad ku mamay burburka iyo dib u dhici weli ay isbaaro hortaala siyaasadda dowladda horta magacayga waa abaan xayir cali rooble runtii su-aashaasi waa su-aal isweydiin mudan waana wax loo baahan yahay in la isweydiiyo dhaqaalaha dalka sidee sar loogu qaadi karaa dhaqaalaha dalka horta waxaa sar loogu qaadi karaa waxay tahay marka ugu horeysa dalka aad gal kasta aad arkayso ee maanta hodan ah wuxuu dhaqaale ku gaaray marka ugu horeysa waa macnaha canshuurtii dalka uu u baahnaa ee la bixiyo sababtoo kaasi wuxuu horumariyaa waa dalka wuxuu dib u kaabaa waa kaabihii dhaqaalaha dalka canshuurta dalka uu lahaa in la bixiyo haddii dalkaasi uusan canshuurta uusan bixinin dhaqaalihiisu ma kamaayo korna muu qaad maayo mideeda kale waxaa kale oo dhaqaalaha sare u qaadaa waxay tahay in la badiyo beerashadii dalka beerihii dhaqaalihii dalka dib loo geliyo dalagii lasoo beerto maanta haddii aysan awood u haynin dadku inay beerahoodii tabcadaan in shirkado loo keeno la dhaqaali geliyo la maalgeliyo kadib waxaa soo baxaya macnaha dhaqaale ku filan dalka ayaa soo baxaya dalaga beeraha markaan aadno baddan khayraad baa ka buuxa khayraadka baddan ka buuxa waxaa iskale dalkan waxaana ku beersanaya waxay tahay waa dhalinta ama bulshada ayaa macnaha horta ku dirsanaysa wuxuuna kaab u yahay dhaqaalaha dalka ayuu kaab u yahay dalku waa riman yahay waxaan anigu la yaabanaya waxay tahay cidda maala doonta macnaha ama goorta uu dhali doono dalkan macdanaa ka buuxda shidaal baa ka buuxa dhaqaalo ku filan dalkani wuu ka buuxa isagu ka buuxa laakiin dadkii ka soo saara lahaa ayaan ku noolayn waxaan aaminsanahay dadka dalkani jooga maryaabaha qaar aad fiiriso inaysa u ekaynba dad dalkaba iyaga iskale oo ay marti ka yihiin wadamada qaar marka aad tagto waxaad arkaysaa ilmo yaryar oo aad u dareemayso inuu wadani yahay ama dalka isaga uu leeyahay dalkani maxaa dhaqaalihiisa kor loo kobciyaa dhaqaalihiisa hoos waxa u wada bulshadiisa ayaga ayaa la rabaa inay kor u qaadaan ayagaa la rabaa inay ka shaqaystaan ayagaa la rabaa inay wax ka soo saartaan waxaa lagu leeyahay maalgelin waddankaagii dad baa imaanaya oo maal gashanaya adigii maxaa kuu diiday inaad maal gashato adiga laftigaaga xaq baad u leedahay inaad maal gashato waddanka adiga aad leedahay dhaqaalihiisana waad kobcin kartaa koraad u qaadi kartaa maanta markaad $1,000 geliso berita waxaa laga yaabaa kunkaasi inay 5,000 ama 6,000 ama 7,000 ay kuu dhasho dalkay dib u gelaysaa marka bulshada ka sii jeeda mooyaane dalkan
maalgelintiisa iyo dhaqaale kobcintiisa bulshada Soomaaliyeed rag iyo dumar uma kala socona qof kasta dalkan uu maalgashan karaa ninkii maanta inta soo kaca baddaas aada ee subaxii u foofa maanta lacag uu kala soo baxaya waa xaqiiq markaad baxdo oo aad tagto xeebaha dadka kalluumaysayaasha ay aad aragto maanta sida ay badda uga jilaabaysanayaan doon dhanoo waxaa arkaysaa macnaha tanka ay wadda aawada la circiraysa waxa waaye lacag kama gadna lagama cashuuro waxba lagama qaado subaxii baddaasay u tagaan waa u foof tagaan way ka soo kalluumaysaan iyaga xataa waxaa loo baahan waxay badda kala soo baxeen cashuur looga qaado ganacsatadu waa in cashuurta bixiyaan haddii ay u arkaan inaysan dalka faa'iido u ahayn dalkay faa'iido u tahay cashuurta waddanka hala bixiyo magacayga waa xirsi dhuux maxamed waaye waa gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada ahna kusimaha gudoomiyaha dhaqaalaha dalka in sare loo qaado waa wax sahlan marka loo fiiriyo siyaabaha gobol waxaa ka mid ah habka lagu qaadi karo in canshuurta la helaa oo ay ku dhacdo gacan aamina waa ka mid qaabka dhaqaalaha kor loogu qaadi karo waxaa ka mid a dadka in muxuu ahaaye wacyigelin badan lagu siiyo inay bixiyaan maaragtay canshuuraha inay bixiyaan lacago tabarucaada oo qaranka dib loogu dhisayo kharash badan oo ku bixi lahaa dhismo badan in xoogga dadka la geliyo oo lagu debero sida hadda barnaamijka isxilqaam oo kale oo aad loo ballaariyo maaragtay tiyaatarka kaliya iyo ma ahan meelo khaas ee meelaha dhismayaasha dawladda oo dhan iyo kuwa cusub iyo kuwa hore intaba maaragtay dhaqaalo badan lagu badbaadiyo waa qaabab wanaagsan oo kor loogu qaadi karo dhaqaalaha weeye sidoo kale waxaa dhaqaalaha lagu qaadi karaa in la keeno cagafcagafyo badan oo xoog la geliyo wax soo saarka beeraha oo maaragtay muxuu ahaa lana yareeyo waxyaabaha dibadda ka imaanaya oo khaas ahaan cuntada xoogga la saaro dadkeennu inay la soo baxaan waxa ay cunayaan si muxuu ahaa markay ku filaadaan ayagu waxay cunayaan soo saarkooda muxuu ahaa markay ku filaadaan soo saarkooda waxa ay cunayaan ay dhoofin u beddelaan marka haddii la helo 10 kun oo cagaf muxuu ahaa oo lagu howlgeliyo ilaa 5 milyan oo dhalinyaro ah oo beeraley laga dhigo dhaqaaluhu inuu kor kacayo shaqo kuma jiro kun xataa 2 kun oo doonyood ama 3 kun oo doonyood haddii badda la saaro 10 dhalinyaro muxuu ahaa loo tababaro inay habka kalluumaysiga muxuu ahaa dhaqaaluhu kor u kacaya wax kasta oo maaragtay xoog la geliyo iyo dadaal ayaa dhaqaalaha kor u qaadi kara laakiin wax soo saarka beeraha iyo kan baddu kow buu ka yahay kor u qaadka dhaqaalaha canshuuraha oo gacan aamina ku dhacahuna waaba tabarta koowaad waayo dhaqaalaha kor u qaadisa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha oo aragtidooda nala wadaagay adiguna daawade aragtidaada ama fikirkaaga waad nala wadaagi kartaa adigoo ka soo aragti dhiibanaya ma kula tahay inay Soomaaliya diyaar u tahay sare u qaadida dhaqaalaha dalka fikirkaaga ama aragtidaada waxaad ku soo diri kartaa lambarka gaaban ee 411 qeybaha dambe ayaan eegi doonaa balse markan ku soo dhawaada waraysi aynu la yeelanay Cabdullaahi Xasan bismillahi rahmaani rahiim aad baa mahadsantihiin baad istiimaadka ma celin insha Allah taala fursadan qaaliga magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Cismaan waxaan ka soo jeedaa xagga qurbo joogta waddankan inta cabaar waan joogay meelo badan oo xagga mataqaanaa dib u dhiskii capacity building ee dowladda Soomaaliya oo kala soo shaqeeyay hay'ad caalami waa tahay kadib isbedel badan oo dhinacyada nabadgelyada ah oo waddanka ka dhacay maxaa lagu qeexi karaa xeerarka dib u dhiska dhaqaalaha waddanka Soomaaliya طبعا waxaa moodaa sida dhabtee yani dhaqaalaha nabadgelyada waa laba shay isku xiran yani waddan horumar ma gaari kara mana hiigsan karayo ilaa la taabtaa marka isbedelkaas iyo nabadgelyadaas soo kobcayso waxay fursad u tahay dad badan oo Soomaali iyo dad badan oo ajnabi inay waddanka ku soo noqdaan investment waddanka gashtaan waddankiina diidib mataqaana uu ku samaysto marka waxay ka mid tahay waxyaalaha mataqaanaa dhiirigelin karaya ama dadkii saameyn ku yeelanaya inay waddanka dhaqaale gashtaan imaadaan ka shaqeeyaan xirfadahooda kuwa waddanka joogiyo kuwa banaanka jiraba ilimadaan marka dhinac walba markii laga fiiriyo waxaa isleeyahay saameyn weyn bay ku yeelan kartaa qofka hataa naftirkiisa inuu ku fikiro Soomaaliya inta yimaado ka shaqeysto ganacsi sameeyo ayadoo ay adag tahay fursadaha iyo mataqaanaa dhibaatada jirta qaar dadka badan ku adkaanayso laakiin isbedelka nabadgelyada xagga wuxuu sahlayaa qofkii
inuu mataqaanaa ka faa'iideysto marka faa'iidada ugu jirta badan waxay tahay dad inta badan hadda example waxaa tusaale fiican u dowladda turkiga oo kaleeto waqti dhaqaalaha soomaaliya nabadgelya u xun tahay bay waxay ku dhiiradeen inay soomaaliya maalgashtaan diyaaradooda timaado taa marka waxay sahashay markii hore oo bilowga ahayd laga yaabo inay xoogaa struggle iyo dhibaato badan kala kulmeen laakiin marka runtii soomaalidan aad bay uga faa'iiday ayagana aad bay uga faa'iideen marka fursadda ugu hore waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iideysan kara qofka marka iyadoo dhibaatada weli jirto ku dhiirnada ama geesinimo waje waddanka inuu ka faa'iideysto qofkaas unba hadhowtii faa'iido ugu badan qaada doona si loo soo kala horeeyaan loo kala faa'iido badan yahay waa tahay dowladda federaalka iyo weliba kuwa dowlad goboleedyada ee qaybta ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya sidee bay dib ugu dhisi karaan dhaqaalaha waddanka waxaan isleeyahay waxyaala aas-aas baa jira soomaalidana waxay tirahdaa gacmooda jir wax ku gooyaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha goboleedka waxa ugu horeeya soomaaliya dib ugu dhisi karaan horna ku gaarsiin karaan kuwa horta waa inuu isfaham dhaba jiraa labadooda ay isfahmaan siyaasadda iyo waxyaalaha lagu khilaafaya marka laga tago in laga wada hadlo waxa danta guud ee soomaaliya ay ku jirto waxa dhibka badan gaaraya waa dalkii dhulka iyo dadkii dhulka ku noolaa waaye marka waxaa isleeyahay haddii isfahan uu jiro labada dhinacba in soomaaliya danta gaarka inta meel iska dhiga danta guud oo dadkii in loo shaqeeyo dadkii wax loo qabto dadkii wax loo qabto waxaa isleeyahay dowladhiska aad buu u sahlanaanayaa fursado badan baa soomaaliya jiro oo labada dowladdu ay ka faa'iideysan karayaan marka laakiin waxaan isleeyahay un gacmada jirba wax ku goyaan hadday gacmaha isqabsadaan oo shakiga khilaaf ku dhex jiro waxaan ognahay taariikhiyan xiriirka dowladaha maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda soomaaliya udhexeeya inta badan aad umuusan fiicnayn marka waxaa isleeyahay fursad qaaliya ama dowladdan ama dowladda ka dambeysa ay ka faa'iideysan karto sin tuhunka iyo khilaafka iyo shakiga inta meesha looga saaro fahamka iyo fikirka labada dhinacba la iskaga dhaadhicin lahay war maxaa danno ah maxaa soomaaliya danno ah dalkii waa noo baahana maxaan horumar dalkeena ku gaarsiin karnaa marka waxaa isleeyahay haddii taa la isku fahmo oo taana dhab ay noqoto ilahi wuxuu leeyahy yuridaa islaax yuwaffiqillah baynahuma yani dadka hadday islaax iyo wanaag doonayaan ilahi subxana watacala waa fujiyaa marka islaaxaas iyo muhim marka haddii taa la helo waxaan isleeyahay fursad qaaliya way u noqonaysaa labadaba dowladda dhexa iyo dowladaha hoose goboleedaba ay ka faa'iideyn karaan waddankan uga faa'iideyn karaan si taa loo helo marka maxaa looga baahan yahay maamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe ee soomaaliya waa tan hadda ku sheegay waxaa looga baahan yahay waxaa waaye dhibaatada soomaaliya haysato waxaa waaye qofka mas-uulka markuu meel yimaado inta badan dadka waxay ku mashquulaan waxaa la rabaa qofka inuu ku mashquulo legacy uu ka tegi lahay qof waliba xilka waa meerto ninba maalin buu yimaada waa ka tagaa marka nin waliba soomaaliya mas-uulkii ama gobol ha ahaado ama federaalka ha ahaado inuu ka fikiro xilkan maanta la ii dhiibay meeqaan ahaan karaya 4 sano 3 sano 5 sano taariikhda aan raba iyo legacy aan ka taga maxay tahay taas haddii labadaba isweydiin lahaayeen kadibna ay isku fahmeen maxaa anaga dan uwe dalkeena dad uwe idinkana dan uwe waxaan isleeyahay wax badan bay u qaban karaan marka inay dantooda gaarka ka horumariyaan danta guud aan isleeyahay horumar ku gaari karaan hagaajinta nidaamka maaliyadda hufnaanta iyo canshuur qaadista ma yihiin astaan dib u dhis waa astaan ka qayb qaadan karta dib u dhiska dhaqaalaha aad bay u tahay yacni qofka shakhsiga soomaaliga xataa inuu helo aaminaad uu ku aamini karo inuu canshuurtiisa soomaaliya ku aamina ama uu bixiyo yani waxay u baahan tahay qofka inuu dareemo lacagta uu bixinayo dakhligaa ka baxayo in dib waddanka lagu soo celinayo taa waxaa ku soo hay-adaha caalamiga ama donorska loo yaqaano soomaaliya deeqda siiyo naftirkooda waxay u baahan yihiin inay ogaadaan damaana qaata ama mataqaanaa kalsooni ay soomaaliya ku qabaan la yihahdo lacagtaa markaan bixino soomaaliya ku caawinaa lacagtu ma reeg khaasa jeebkooda gelaysaa mase hufnaan iyo mataqaanaa transparency iyo daacad baa dalkii loogu shaqeynaya marka haddii la xagga inkastoo haddaan isleeyahay dowladda soomaaliya waxyaala badan bay ka qabatay dhaqaalaha iyo mataqaana hufnaanta financeska waxay abuureysaa in soomaalidina ay aaminto nin shakhsiga soomaaliya uu yidhaahdo waxaan diyaar u ahay markii uu arka lames wal dhisi jil dhisi isbitaal dhisi iskool dhisi uu dareemo qofka soomaaliga xoolahan uu bixinayo iyo canshuurtan uu dhiibayo inay tahay mid asaga uu ka faa'iideeyo carruurtiisa ay ka faa'iidayaan caafimaad uu ku helayo marka hufnaantaas waxay sahlaysaa qofka soomaaliga inuu lacag bixiyo uu iskiisa isu xilqaamo kii dibadda jiro diasporan uu soo noqdo waddankii maal gashto international community hay'adaha caalamiga soomaaliya caawinayeen naftirkooda ay ku dhiiradaan soomaaliya markay ka dareemaan hufnaan dhaqaalaha xaggeeda mataqaana haddaan isleeyahay waxyaala badan dowladda soomaaliya wax ka qabatay waxay muujinaysaa mataqaana ay kalsooni dhinac walba ka imaanayso ama maamul goboleed ha ahaato ama soomaaliya ha ahaato ama donors ha ahaado in return yani taasna waxay dib ugu soo celinaysaa inuu dhaqaalihii wax badan iska bedelo bay noqonaysaa meelaha
uu sida gaarkaa ugu dhismayo ama ugu dhismay dhaqaalaha waddanka aada is leedaha waa kuya soomaaliya marka la yidhaahdo gross domestic product ama g d p wax loo yaqaano dhaqaalaha soomaaliya 4 indhood buu leeyahay inta badan midda ugu horeysa waxaan isleeyahay waa dhaqaalaha xoolaha soomaaliya shaqaale xoolaha u baxan bay dhoofisaa ilaa lagu qiyaaso 4 milyan oo mataqaanaa xoole oo ariga iyo idaha iyo iskugu jiro taasna waxaan isleeyahay waxay u dhigi kartaa marka la fiiriyo g d p ga soomaaliya 40% ma ka badan inay noqoto dhaqaalaha soomaaliya soo galo waxaa taas soo labeeyo dhaqaalaha beeraha kasoo gala soomaaliya isagana aada u xoog badan labada kaleenta oo soomaaliya waxaa lacagtan hadda loo yaqaan remittance ama xawaaladaha oo kaleenta ama dadka dibadda jooga soo diraan qayb xoog bay ka qaadataa mataqaanaa dhaqaalaha g d p product g d p ga soomaaliya waxaa taas soo saddexeeya oo soomaaliya mataqaanaa ka caawiya inay lugaheeda ku istaagto wax badan ka geystay ama dowladda xaggeeda ama mataqaanaa shacabka markay abaar dhacaan iyo wax kaleento waa deeqda ay bixisay hay-adaha caalamiga ama IMF ay bixiso ama World Bank uu bixiyo ama Turkiga mataqaanaa UN ay siiyaan marka 4taas indhood baan isleeyahay meelaha ugu badan Soomaaliya dhaqaalaha ee ka soo galaan isleeyahay wax badan runtii nolosha maamulka ka bedelay Soomaalidan u baahan inay ogaadaan in waddankan uu horumar u dhaqaale yeesho in la isku haleeyo kaliya ma aha dhaqaalo ama mataqaanaa deeq ka timid dal shisheeye ama mataqaanaa hay-ada shisheeye laakiin la isku dhiirigeliyaa Soomaaliya naftirkoodu Soomaalida waa dad resilient dad mataqaanaa aad u dhiiran umaleemaayo waddan lamid ah Soomaaliya oo dhibaatada Soomaaliya intay soo martay ama abaar ha ahaato ama dagaal ha ahaado ama rafad ha ahaado haddana ka soo kabtay yani Soomaalida un baa laga helaan isleeyahay intay 30 sano dhib jiray aad bay isu garqabtaan ama dal ha joogaan ama dibadda joogaano haddana waxaa isleeyahay hadday sii socoto dowladda Soomaaliya dalka Soomaaliya isku xilqaamaan inay dalkooda wax u qabtaan ayagana wax qabsadaan waxaa isleeyahay mustaqbalka waa la gaari doonaa maray Soomaaliya ka maaranto deeq shisheeye oo mataqaanaa dalka dibadda laga keeno waa tahay dhinaca lacagaha waxaan ognahay lacagtii shilin Soomaaliga ee hadda waddanka laga isticmaalo in gobollada qaar ee waddanka sida Beledweyne oo kale aan laga isticmaalin iyadana qayb ka tahay hoos u dhaca dhaqaalaha aad bay ku yeelanaysaa yani waxyaalaha mugtahay waddanka dhibaato ku keena waddankii lacagtiisa kala isticmaalayn oo la isku haleynaya lacag mataqaanaa dollar uusan waddanka lahayn dhibaatooyin badan iyo mataqaanaa bay dhaqaale u keenaysaa inkastoo dadka qaar isleeyihiin faa'iido waa laga helaayo wadamada qaar oo kale markaad u fiiriso qofkii lacagta localka markuu haysto ama dollarkii ugu dhaco ama lacagta laga dhacdo labada dhinacba khasaare iyo faa'iido waa lagu talagelayaa laakiin Soomaaliya waxaad moodaa inta badan in dollar la isticmaalo lacagta Soomaaliya aan isticmaalaynin marka laga yaabo beecsharada iyo ganacsiyada qaar inay faa'iido ugu jiraan oo stability currency exchange iyo fluctuation badanaa dhici jiray oo iska yaraanaya laakiin siisa waddan wuxuu ku gaaraa inuu waxna soo saarto lacagtiisana isticmaalo marka waxaan isleeyahay taasna dowladda waa meel ay diiradda saari karto oo in mataqaanaa lacag cusub ilaa dhowr sano hadda waa la isku dayay in wax laga bedelo lacagta lacag cusub la soo saaro marka haddii lacag cusub oo mataqaanaa kalsoonida dadka ay heli karaan la soo saaro aynu noqoto lacagta dalka Soomaaliya dowlad bay leedahay marka dalka inay isku tashtaan oo lacagtooda isticmaalayaan inta la isticmaalayo lacag mataqaanaa foreign currency waxaan isleeyahay horumarka waxyaalo badan caqabad badan baa keenayo marka saameyn bay ku leedahay runtii marka loo fiiriyo xagga dhaqaalaha waa tahay haddii ay dhacdo in dowladda dhexe Soomaaliya lacag ay u soo daawacdo waddankan maxaa isbeddel ah oo dhici kara isbedelada baa dhici kara horta lacagtii dollarka la isticmaalayay sida loo isticmaalay isbedel weyn ma ka imaanayo marka waxay noqonaysaa in lagu heshiiyo muxuu noqonayaa sarifka Soomaaliya lacagta soo saaratay marka dollarka loo barbardhigo muxuu noqonayaa kadibna dadkii kalsoonidii Soomaaliya shacabka meel walba in laga gado lacagta lacag Soomaaliya oo lacag dowladda aqoonsan tahay shacabkuna waa inay isticmaalaan taa ayadana haddana waxay saameyn ku yeelanayaan loo sameeyo qofkii lacagtii Soomaaliya haystay oo kaasha naftarka waa in value inta loo yeelo ama bangiyada ama dowladda ay ogolaanayaan inay ka bedeshaan ama dollar lagu bedelo laakiin dad badan oo Soomaaliya waxaa jira inkastoo lacagta ay sii dhamaanayso laakiin waxay dadaal badan bay u baahan tahay dowladda inay geliso maxaa la yeelayaa ninka lacag Soomaaliya haysto maqashan ku dariyaa ama qiimo yeelanaysa taa naftarka waxay u baahan tahay in loo abuuro dadka lacag Soomaaliya kalsooni ah maadaama dowladda ay damaanad qaadayso in ay lacag cusub keenayso in value loo sameeyo ninka lacag Soomaaliya haysto laga ogolaan inuu toor sii celiyo lacag cusub qaato waddankana lagu baahiyo meel walba waddanka dowladda ay gaarta ama margoboleeda lagu baahiyo la yirahdo lacag Soomaali waa isku afgarto marka loo technicals u baahan tahay in la isku afgarto laakiin waa wax dhici kara oo isbedelna ka waji kara xagga dhaqaalaha waa tahay
horumarka dhaqaalaha waddanka ma waxaa lagu qeexaa magaalooyin gaar ah mise guud ahaan waddanka? horumarka dhaqaalaha waddanka waa inuu waddanka wada saameeyaa. يعني meel waa ka bilaaban karaa xamar oo kale Soomaaliya Muqdisho kaleenta waa caasimadii mataqaanaa Soomaaliya dadka ugu badan Soomaaliya maanta ama magaalo degan ay degan yihiin marka xataa hadduu ka bilaado dhaqaalaha kobcinta hal magaalo hadduu ka bilaado waxaa loo baahan yahay inuu dadka wada gaaro يعني roog markuu soo daato waa inuu dadka meel walba wada gaaro ama si dadka uga wada faa'iideystaan haddii ay tusaale waddanka gobolka xamar laga baxo kale ama gobolada la tagay caasimadaha kaleento Jubbaland mataqaanaa South West oo kaleento ama Jubbaland Hiiraan oo kaleento hadduu caasimadaha gaaro waa in dawladdii ay dadaalka muujisaa inuusan magaalada ku ekaanin oo shacabkii iyo dadkii iyo deegaanadii kaleento iyo la wada gaarsiiyo maxaa yeelay Soomaaliya waxa dhacaya dadkii baadiyaha waa laga soo guurayaa dadkii magaalada la isku imaanaya magaaladii marka la isku imaado dhibaato badan ma ka imaan karto dadkii deegaanka waa inay dhici karto magaalada qaadana dhici karto marka dadka in fursad loogu abuuro dhaqaale ah qofka magaalada banaanka jooga ama baadiyaha jooga hadduu ku helayo Soomaaliya caasimadaha wuxuu ku helayo inuu caafimaad helo inuu waxbarasho helo inuu dhaqaale helo haddii fursadaha meeshu degan yahay loo abuuro yani gurgurka badan iyo mataqaanaa inuu maadnimada Soomaaliya guri waa la yiraahdaa way yaraan lahaayeen marka fursad waa mas'uuliyad saaran dawladda federaalka iyo dawladaha maamul goboleedyada inay fursada Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed meel bay joogaan ay gaarsiin oo aysan ku ekaanin magaalo gaar ah ama mataqaanaa gobol gaar ah ku ekaanin waddankiisa kana sana dhalinyaradu iyo haweenka waddanka u badan gaar ayagana meel walba Soomaaliya joogaan marka fursada in looga faa'iideeyo gobol walba iyo magaalo walba joogaan in la gaarsiiyo waa mas'uuliyad saaran mas'uuliyadda Soomaaliya ama dawladda federaalka ha noqoto ama dawladda goboleedka ha noqoto dhinaca wax soo saarka Soomaaliya misleedahay aad ayuu u liitaa aad buu u liitaa Soomaaliya maxaa yeelay maanta suuqan baad tegi kartaa arki kartaa yani wax kasta oo dhaqaaqa ama socdo ama la iibinayo waddanka dibadda laga keenaa waddan sidiisa wuxuu horumar ku gaaraa wax soo saarkiisuna badan yahay marka waa dhiirigelin u baahan shacabka Soomaaliyeed iyo mataqaanaa ganacsatada Soomaaliyeed inay ku fikiraan sidii ay horumar ku gaari lahaayeen maxaa yeelay manufacturing sector wax la yiraahdo wax soo saarka ama wax soo saaro waa inta badan meesha shaqaalaha ama dhaqaalaha ka soo galo haddii la yiraahdo dibadda laga keeno yani waxa yaraanayso faa'iidada lagu qabo waxa laga yaabaa haddii mataqaanaa kabahan meesha lagu sameeyo magaaladan 400 ruuxna ka shaqeysa waxa laga yaabaa laakiin markii laga keeno Thailand ama waddanka laga keeno ama Bangladesh laga keeno yani faa'iidada waxay u hareysaa warshadahaas iyo dawladdaas iyo dadka ka shaqeeyay anaga waxa kaliya faa'iido ku leenahay waxa waa marka kale laga soo dejinayo canshuurta la qaadayo waxaan ka hayn Soomaalida kama faa'iidayaan qofka laga yaabaa dad badan oo shaqaale badan inuu ka shaqaaleysiyo laakiin haddii go'aan lagu gaaray in soo saarka la kobciyo Soomaaliya dawladda canshuur bay ka helaysaa shacabka iyo dhalinyarada iyo mataqaanaa ummadana waxay u abuureysaa fursad qaali oo shaqeena ka helaan arinta wax soo saarka oo liita waddanka taasi miyaysan saameyn ku lahayn dhaqaalaha waddanka aad buu ugu leeyahay maxaa yeelay isweydiiyey Soomaalida dhalinyarada u badnaatay waa la yaacaa Soomaaliya tahriibka ku badan boqolaal qof sanadkii noo dhamato mataqaanaa saxaraha iyo badaha tahriib waaday marka isweydiiyey qofka cararaya Soomaaliya ka tagayo waddan shisheeye aadayo umaleemayo inuu isleeyahay aad taajirtid ama malaayiin dollar aad samaysid wax uu raadinaya kaliya waa nolol maalmeed yani inuu nolol fiican ku noolaado reerkiisa mataqaanaa wax tari karo caruur hadduu leeyahay reer hadduu leeyahay caruurta iskool u dari karo waxbarasho fiican ay heli karaan waxaan intaas waa wax loo kala cararayo marka haddii intaa waddanka laga abuuri karayo fursadaha way jiraan dhaqaalaha waddanka uu leeyahay Soomaaliya haddii isku tashato yani dhaqaalaha waddanka yaalo ama mataqaanaa resource waddanka uu leeyahay dadka loo qaybiyo laga faa'iideysto baahi ma jirteen Soomaaliya dadka inay tahriibaan waddanka kale la aado khaasatan dhalinyarada boqolkiiba 70 ka badan waxa la yiraahdaa populationka Soomaaliya waa dhalinyaro marka haddii ayaga fursada loo abuuro uma leeyahay qof dhalinyaro maanta inuu tahriibi lahay waddan shisheeye hadduu fursada inta ka heli karayo marka taasna dee waa talantigii iyo maskaxdii iyo mataqaanaa caqliga Soomaaliya inta dhufino ma warshadada kale leeyihiin beerada kale leeyihiin waan u dareynaa anagoo kuweeni wax sameeyo wax ka shaqeeyo loo leeyahay marka waa fursad dawladda inay ka faa'iideysan karto
ganacsatadana ganacsadayaasha Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan karaan in dhalinyarada Soomaaliyeed oo badda iyo saxaraha ku dhamaanayo ama markii wadankii kala tagaan hataa mataqaanaa dhib badan iyo cunsurin badan iyo rafaad badan la kulmo looga faa'iideyn karayo inay wadankii wax u qabtaan oo dalkooda horumar gaarsiiyaan haddii warshado iyo beero jiraan ka shaqeeyaan qofkiina waxaan isleeyahay uu dareemayo mataqaanaa kalsooni iyo farxad uu ku dareemayo inuu wadalkiisu ka shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisana wax u qabto. si loo taageero wax soo saarka wadanka si uu sare ugu kaco wax soo saarka dalka maxaa looga baahan yahay hay'adaha dowladda? hay'adaha dowladda waxaa looga baahan yahay fursadii horta inay abuuraan. dowladda waxaa waaye Soomaaliya waxaa tiraa ninkii tiis daryeelaa mid kale ku daro. marka dowladda horta marka hore waxaa loo baahan yahay uun isleeyahay horumar badan waa laga gaaray fursado kana u warsan yihiin in hay-adaha dowladdu horta laga bilaabo shaqaalahooda la tayeeyo. waxaan ogolsoonahay in mataqaanaa shaqaalo badan oo dowladda ama aysan tayo lahayn ama shaqadii si la rabay aysan u qabanaynin. marka dowladda mas-uuliyadda koowaad sar waxaa horta dowladda in ayada tayo yeelato wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda u shaqeeyo in la tayageliyo oo shaqaale loo tababaro mataqaanaa transparency iyo mataqaanaa hufnaan ay ka jirta wasaaradaha iyo mataqaanaa dowladda dhexdeeda. intaa markii dowladda gaartay kadibna haddana dadkiisi wax lagu qaban lahaa iyo shacabkii iyo ganacsatada Soomaaliyeed lagu qabto ayadana fursadii hore aan uga soo hadlay sahliyo oo faa'iido badan hadhowtay dowladdu ay ku soo noqonayso. maxaa yeelay dowladda markii dadka gacan siiso qofka wax soo saar ku soo saaray dowladda waxay ku leedahay. marka waa circle soconayo oo qof walba uu ka faa'iideeyo dowladda ka faa'iideyso shacabka Soomaaliyeed ka faa'iideeyaan meel bay joogaan. haddaysan dhicin in inta aad soo sheegtay hay'adaha dowladda aysan qaban waad kaanaysaa waddanka inuu horumar gaaro. yacni halbuulaha mataqaanaa waddanka waa dowladdu. dowladdii haddaysan xoog lahayn saameyn badan lahayn ayadii iyo wasaaradaheedii aysan tayo badan lahayn yacni waa sheekada waxay kusoo noqonaysaa laba qaban isma qaado. yacni qof naftiisa waxu qabtaa qof kale wax u qori. marka way adkaanaysaa shacabka Soomaaliyeed oo in badan sugayay dowladda wax qabato waxtar loo dalka wax u qabato aad bay u adkaanaysaa xataa in la aamino in dadka wax u qaban karto. maxaa yeelay su-aasha ku hormaanaysa dowladdu waxay tahay dowladdu maxay qabataa naftarkeeda soo la isweydiinayo. waxaan ognahay oon maanta shaki ku jirin ganacsada Soomaaliyeed inay horumar mataqaanaa baaxadda Soomaaliya gaarsiiyeen. marka waxaa isleeyahay doorkii dowladda baa weli gaabis ka jira. marka haddii mataqaanaa fursadaha noocaan oo kala sameeyo dadka la dhiirigeliyo la wacyigeliyo in isbedel badan ay ku sameynayso. annagana waa in Soomaalida aan ka hadalnaa horumarka iyo wanaagga iyo in lagu tartamaa waa in dadka Soomaaliya ka hadla marka laga soo tago siyaasadda iyo mucaaradnimada iyo marka laga soo tago in wixii wanaaga horumar Soomaaliya ka socdo la sheego oo la iska xasdin. dowladda wax qabatana la yiraahdo dowladda wax qabatay haddii ka gaabisana loo sheegay waa ka gaabisay oo qofka inta dhahay aan loo arkin mataqaanaa mucaarad qofkii dowladda amaanana aan loo arkin mataqaanaa inuu dowladda ay noqotaa laakiin dan guud oo dalka ka dhaxayso dalka ka dhaxayso ay noqoto in loo arkaa ay muhiim tahay. ilaa hadda ma jiraan tallaabooyin cadcad oo ay dowladda dhexe Soomaaliya u qaaday dhinaca dhaqaalaha si sare loogu qaado. qaybta maaliyadda oo isla wasaaradda dowladda federaalka inay dadaal weyn ka muujisay in cashuur qaadistii oo mataqaanaa hirgelin fiican lagu wado in aaminaadii dowladda iyo hufnaantii ay wax badan ka qabatay si mataqaanaa IMF iyo World Bank iyo dowladda ay kalsooni ugu muujiyaan in dowladda Soomaaliya deen la siin karo in lacag maamuli karto. wasaaradaha Soomaaliya budget ama donor lacagta ay siiyeen oo khaas ah ma maamulaan. marka waxaan isleeyahay way jirtaa meelo badan xaggaaba u badnaata dhaqaalaha iyo mataqaanaa maaliyadda laakiin meelo badanna mataqaanaa dowladda ka gaabisa u baahan horumarna ayagana waa taariikh wasaaradaha kale marka loo fiiriyo. markii aan runta ka hadalna waxaa waaye Soomaaliya wasaarada badan baa jiro. marka wasaaradaha in la tayeeyo wasaaradda caafimaadka waxaa la rabaa inay isbitaal dhisi karto. wasaaradda waxbarashada waxaa la rabaa inay iskoolla iyo jaamacadaha Soomaaliya dhisi karto oo macallimiintii iyo professoradii jaamacadaha dhigayay ay mishaarkooda bixin karto. wasaaradda walaha guud waxaa la rabaa inay laamiyaashii iyo hawiyaashii jidkan waddanka burburi uu ku dhismi lahay inay bixin karto maamuli karto tayeyn kartaa loo baahan yahay. marka waxaa isleeyahay garguuridkii baan ku jirnaa iyo socod baradkii laakiin waa isleeyahay mustaqbalka inaan gaari doono mar wasaaradda caafimaadka ay mas-uul ka tahay budgetka iyo dhaqaalaha iyo dhisidda iyo isbitaalada iyo mataqaanaa shaqaaleynta dhakhaatiirta ay kamid tahay. wasaaradda waxbarashada mataqaanaa sidoo kale mas-uuliyadda qaadi karto oo dhigi karto intaasoo boqol oo macallin mishaarka bixinaynaa intaas jaamacada dhisaynaa laakiin waqtigeeda la gaari doonaa isla insha Allah tacaala. caqabadaha jira waxaa ka mid ah nabadda oo aan aada u xooganayn soo sidaasi maaha.
aad iyo aad taa marka hore uga hadalnay nabiyullaahi ibraahim markuu u baryayey xijaaz ilaahay wuxuu yidhi fajcal hada albalada aaminan warzuq min atayibaat yani laba shay buu ilahay weydiistay wuxuu yidhi ilaahayow dalkan amni ka yaal irsaaqadan u waasice marka amaanad yani amni in la hela soomaaliya waa albaabka koowaad oo laga gelayo yani qofka hataa hadduu wuxuu cuno haysto haddii xabad iyo qarax iyo madfaca kor dhacayo fursad waxa cunayo waxa uu haysto ku cuna ma helayo uu ka cararaya marka waa albaabka koowaad iyo fursadda koowaad iyo mas-uuliyadda koowaad oo saaran dowladda soomaaliya in dadka nabadgelyadooda iyo badbaadadooda la damaano qaado oo dowladda ay mas-uuliyad gaara iska saarto horumar badan waa laga gaaray lakiin in badan iyo caqabado badan oo dowladda hortaagan waa jira dowladda loo baahay in wax ka qabtaan marka taa haddii la helo risqigii iyo ganacsatadii iyo waxbarashadii iyo maalgashigii iyo wuu iska imaanaya lakiin inta uu jiro qofka soomaaliga ama ajnabiga oo rabo somalia inuu maal gashto yani maanta nin ajnabi waa adagta inuu ku fikira somalia inuu maal gashto saa sharci u damaana qaadayana ma jiro xoolihiisu nabadgelyo u damaana qaadaysa ma jiro qof soomaaligana kama liito qofka soomaaliga inta badan oo xoolahaas waxaa laga yaabaa inuu ka fikirayo dad badan oo ganacsato horumarka gaaro waa jiraan laakiin in badanoo waxaa jirto haddii nabadgelyo waddanka laga heli lahay ama cabsanayso ama lacagta jeebka ugu jirto meel kale lacagtooda la aadayo oo haddii fursaddaa jirta nabadgelyadaas soomaaliya ay jirto lacagtooda ku qanacsanaan lahay inay soomaaliya keenaan oo dhalinyaro soomaaliya gabdha soomaaliya ay shaqaaleysiiyaan marka albaabka ugu horeeya iyo fursadda ugu horeya mas-uuliyadda saaran waxaa is leeyahay waa nabadgelyada haddii taa la helana waxyaala badan baa isbedeli doona insha allah qurba joogta soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa kaalinta ay ka ciyaari karaan dhaqaalaha sare u kaca dhaqaalaha waddanka waxaad leeyahay qurba joogta lababa shayba midna waa ku taageeran soomaaliya waan ognahay oo lacagaha ugu badnaa xataa marka loo fiiriyo lacagaha deeqda hay-adaha caalamiga bixiyaan waxaa in badan ka badnaa jira lacagaha soomaalida ay soo diraan taa waa tii horo labada kaleeto soomaaliya looga baahan waxaa waa inay la soo noqdaan waddankooda ku soo noqdaan qofka ama xirfad aqoon buu leeyahay ama xirfad waxbarasho buu leeyahay ama xirfad ganacsi buu leeyahay in waddanka inta loo soo noqdo qof waliba aqoonta iyo xirfadda uu leeyahay inuu waddankiisa uga faa'iido waxaana mataqaanaa in badan suurtagale fursadda soomaaliya taallo inay maanta ka badan tahay meelo badan fursada ay yaalaan laakiin waase loo jeedin qofka hadduusan cagtiisa hoostada waxa ku jira usan fiirinin waa adag tahay marka soomaaliya waxaan dhihi lahay dadka qurbaha joogo oo soomaaliya in badan taageeray haddana taageeray uga baahanta soomaaliya cid ay maanta soomaaliya ku haleynayaan ma jirto marka waxaan dhihi lahay labadaaba hadday la soo noqdaan soomaaliya wax badan baa iska bedeli lahay waddankan dadna ooma maqno ceelna ooma qodno waxa uu u maqan ama u baahan waa dalkiisii nimaan dalkiisa dhisana dee cid kale ku dhisayso malaha marka soomaalida waxaan isleeyahay taa in la iska dhaadhico mas-uuliyad soomaalida saaran ama dal ha joogaan ama dibadda joogaan soomaaliya dhismaheeda iyo horumarinteeda waa mas-uuliyad saaran qofka soomaaliga ama dowlad ha ahaado ama shacab ha ahaado ama ganacsata ha ahaado haddaan waddankan anaga dhisana cid maanta noo dhisayso ma jirto qofka inuu kugu taageero waa laga yaabaa laakiin markii lagu arka inaad adigaba waddankaada inaad isdiyaar u hayn qofkii kale hataa wax ku taageeri lahaa wuxuu leeyahay ninkan bu asaan diyaaruma dalkiisa inuu dhistee maxaan u qaban karnaa hanaanka canshuur qaadista ee waddanka sidee buu kulyahay hanaanka canshuur qaadisto yani qof waliba uu isleeyahay waddanka banaankiisa ama khibrad buu leeyahay muu soo arka muu ku noolaaday wuu dareemi karaa canshuurta soomaaliya laga qaado waxaan isleeyahay waa canshuuraha ugu hooseeya ama ugu liito caalamka intiisa kaleento marka waxay kusoo noqonaysaa haddana yani qofka soomaaliga waa dareemi karaya caqabada hortaagan qofka soomaaliya ganacsatada inuu ku dhiirado inuu canshuur bixiyo oo dowladda taageero oo dakhliga soo galaya mataqaanaa shacabka iyo dowladda la wadaago maxaa yeelay qofka waddanka la joogo oo canshuur bixiyo damaanad buu helayaa damaanad security jirto damaanad dhaqaalaha jirto damaanado badan oo mataqaanaa dowladdii iyo lacagtiisi uu bixiyo uu ka dareemaya meesha kusoo noqotay oo ama laamiya lagu dhisay ama waxbarasho lagu simaama caafimaad lagu qabto uu dareemayo laakiin waxaan isleeyahay ganacsatada soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed horta tooda ha ka fikiraano intaanan ka fikirin anaga maxaa naloo qabanayaa aan isweydiino annaga waddanka maxaan u qaban karaynaa marka haddii taa iska dhaadhicino aad bay u yartahay canshuurta soomaaliya la bixiyo qofka soomaaliya meel walbuu joogan lacagta wuu bixiyaa marka soomaaliya baa mudan dalka soomaaliya baa mudan dowladda soomaaliya baa mudan in canshuurta aan bixino dowladdana mas-uuliyaddeeda baa saaran inay damaano qaada lacagtaas shacabka ay bixiyeen oo dakhligaas ay mataqaana shacabka dowladda la weegeen inay damaano qaado lacagta ayada inay dib ugu soo noqonaysa shacabka
in laamiye lagu dhisiyo in isbitaal lagu dhisiyo in iskool lagu dhisiyo marka labada damaanabo waa intertwan waa isku xiran yihiin laakiin waxaan dhihi lahaa shakhsiga soomaaliyeed horta asaga mas-uuliyadaas ka saaro kadibna dowladda la xisaabtamo oo inta qofka dhihi lahay dowladda ma sameynaan waxaan sameynaya in isku xirno qofka mas-uuliyaddiisa kasoo baxo canshuurta lagu leeyahay xaqa lagu leeyahay uu bixiyo dowladdana markaa la xisaabtamo la yidhaahdo intaasoo lacag oo canshuur bay aruurisay ama sanadka hore ay qaaday maxay ku qabatay oo hay-adihii mataqaanaa dowliga ahay ee wada xisaabtamaan dhaqaalihii dakhliga soo galay shacabkan lagu qanciyo marka fursad waxay heli karta dowladda ama canshuuraha inay badiso ama shuuro badan inay hesha ba u hirgelayso laakiin inta shakiga iyo tuunka uu jiro in lacagta mataqaanaa shacabka laga aruuriyo aysan meel kale gaaraynin ama dheer aysan gaaraynin ama dad gaara jeebka ku noqonayso oo aad bay u adkaanaysaa inay soomaalida ku dhiiradaan inay dowladda taageeraan dakhilna bixiyaan si marka sare loogu qaado kalsoonida ay shacabka soomaaliyeed ku qabaan dowladda ee dhinaca dhaqaalaha maxaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay soomaaliya dowladdu dhaqaala haba yaraadee waa soo galaa mid canshuur ha ahaado ama mataqaana revenue local ha ahaada ama mid deeqa ay gaaraan inay dowladdu report transparency dadka la wadaato ay bixisay tiraahdo qofka citizenka ama mataqaanay shacabka soomaaliyeed inuu access u leeyahay dowladda la xisaabtami karo oo maanta aniga haddaan su-aal qabo ama internetka gala ama meel khaas xafiis aan tago aan dowladda dhihi karo wax caddeynayo dowladda ay shacabkii tusi karto oo dhihi karta lacagta intaas baa soo gashay intaas baa wax lagu qabtay intaas laamiya la dhisay intaas baa istaalaa la dhisay marka kalsoonida in la abuuro wax badan bay bedelaysaa kalsoonida inta meesha ka maqan tahayna waa adkaanaysaa waxyaala badan inay hirgalaan maalgashiga shisheeyaha sidee ayuu dib u dhiska waddanka dhaqaalaha uga qayb qaadan karaa marka maalgashiga hadda waxaan isleeyahay dalka shisheeye hadda marka laga reebay turkiga iyo hay-ada kaloo yarar intooda badan focuskooda wuxuu ahaayey soomaaliya inay ku caawiyaan si soomaaliya soo kaban lahayd umaley maayo hadda inay waqti badan geliyaan soomaaliya inay maal gashtaan oo lacag geliyaan oo xoolo gashtaan laakiin inay marka hore soomaaliya ku taageeraan sidii soomaaliya looga ugu istaagin lahayd kadibna ay ka fikiraan mataqaanay fursadaha dalka yaallo ama shuruucda mataqaanay dhiiragelinaysa ama mataqaana damaana qaadayso qofka ajnabiga oo soomaaliya maanta maal gashanaya ama dhaqaalashanayo inta ka horeysa laakiin waa inay soomaalidu abuuraan jawiga asaga uu ku dhiirana gelinayo qof shisheeye inuu inta soomaaliya yimaado maal gashto ku noolaado waa mas-uuliyad laga rabo dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed inay abuuraan waxaan isleeyahay dowladda keliya mas-uuliyadda ma saarno shacabka iyo ganacsatada iyo dhalinyarada iyo aqoon-yahanadana iyo ama daljoog ama qurbajoog cid walba soomaaliya ama soomaalnimo ku atirsato saaran yahay waajibka asaga in jawiga annaga nafteena u abuurno dadkii ajnabi ahoo mataqaana ama dhaqaale inay soomaaliya siiyaan doonayo ama inay maal gastaan doonayana aan u abuurno ilaa taa ay ka dhaceysana dad badan soomaliya waa ka qabsan doonaan qaab aynkee ayay markaa ku maalgashan karaan shisheeyo waddanka waxaan isleeyahay soomaaliya shuruucyo badan oo mataqaanay xagga dhaqaalaha maalgashiga ku salaysan weli maysan hirgelin marka taa marka la hirgeliyo mataqaanay ama baarlamaanka un baasgareeya ama qofkii damaano uu helo maxaa yeele qofka hadduu maanta soomaaliyanood war la yimaado naftiisaan la damaano qaadi karin xoolihiisii iyo maalkiisa ina damaano qaada iska dhaafe qofka ajnabiga markuu aerobarka kasoo tegayo shuruuha waa adag yihiin dowladdiisii kuma dhiiragelinayso marka hay-adihii ka shaqeynayay waddanka bay ku adag tahay xaalan inay soo dhaafaan marka ilaa laga gaarayo jawiga ama mataqaanay waqtigaas isage oo ninka xaalana maanta ku nool hay-adda intuu xamar soo galo hotel karaysto maqaayad wax ka cuno jidka maro guri karaysto qof kaleento waa ku adkaanaysaa soomaaliya inuu inta maal gashto ama ku noolaado waa adkaanaysaa laakiin waxaan isleeyahay maalinba meel bay nolosha ku gaarsiisaa maalinteedana waa la gaari doonaa ku rajowna insha allah xeerka shaqo la-aanta waxaa lagu qiyaasaa 59%. haddii uusan suuq shaqo uusan jirin maxaa uu yahay dib u dhiska dhaqaalaha waddanka shaqa abuurista waxay mataqaanaa qayb weyn ka geysataa dib u dhiska dalka ama dakhliga dalka soo galo maxaa yeelay qofkii markuu inta shaqo helo mishaar qaato lacagta ayadaas u sooda 100% dalkay gelaysaa guri buu karaysana buu bixinayaa maqaayad buu gelayaa dhowr buu iibsanayaa ilmuhu iskoolka bixinayaa haddii aan fursaddaa la helin marka qofka shaqa lagu abuuri lahay waa adkaanaysaa circulationkaas the wealth circulations inuu waddanka ku faafo
marka waa tii markii hore aan ka soo hadalnay yani dowladda mas-uuliyad baa ka saaran abuurista mataqaanay ama nidaamkii mataqana dadka lagu shaqaaleysiin lahay in lagu dhiirigeliyo ganacsatada soomaaliyeed inay dhalinyarada soomaaliyeed shaqaaleysiiyaan waxaa laga yaaba qofkii inuu maanta awoodo inuu shaqaaleysiiyo 10 qof shaqadii 10 qof ay qaban lahaydna 2 qof oo Soomaaliya u qabanayso marka asaga ka fikiriya dhaqaalaha asaga soo galay lacagta asaga u hareyso uusan ka fikirin 10 qof markuu shaqaaleysiiyo yani saameynta ama impact ay ku yeelan karto magaalada uu degan yahay ama waddanka uu degan yahay inuusan ka fikirin marka in awareness ama dhiirigelin ama mataqaanay wacyigelin dowladda iyo mataqaanay warbaahinta kale intii la muujiyaa shaqo abuurta dhalinyarada loo sameeyaa in mataqaanay la fududeeyaa dadka inay maal gashaan Soomaaliya inay soo noqdaan ugu dhiirigeliyaa in ganacsatada mataqaanaa ganacsatada loo fududeeyaa maxaa yeelay qofka markuu Soomaaliya yimaado ganacsi furta haddii marka hore lagu dhibo inuu ganacsiga furtay sharciyeynta lagu dhibo yani taa waxay dib u dhigaysaa qof Soomaaliya oo shaqeyn lahay oo income heli lahay ama lacag soo gali lahayd bay dib u dhigaysaa intaa marka la helana waxaa is leeyahay kuwii banaanka jireen waa soo noqonayaan kuwii tahriibay oo cararayna waddankay joogayaan maxaa yeelay qof walba Soomaaliya wuxuu raadinaya nolol maalmeedka marka qof xamar ka heli kara nolol maalkiisa adsabana aadamaayo Nairobi aadamaayo meel ka shishan iska badhaaf marka waa wacyigelin dowladdu u baahan tahay inay ka qayb ka qaadato oo ganacsatada ay qayb ka qaataan warbaahinta ay ka qaadato in dadka Soomaaliya xoolaha iyo dhaqaalaha iyo resource yaalo cid walba Soomaaliya ka faa'iido ku filanta marka loo qaybiyo resource waddanka yaalo qof walba Soomaaliya mataqaanaa nolol fiican buu ku noolaada u awoodaan ku noolaada saas baan isleeyahay ugu dambeyn taladaadu maxay tahay taladeedu overall waxay noqonaysaa in Soomaaliya samata bixinteeda qof waliba oo Soomaaliya buu mas'uul ka saaran tahay dowladda mas'uuliyadda u badnaato laakiin shakhsi kasto wiil kasto oo Soomaaliya ama gabar kasto Soomaaliya ama qoyaan kasto mas'uuliyad baa ka saaran Soomaaliya samata bixinteeda waxa taalabeeyo ganacsatada Soomaaliyeed oo dhaqaalaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u fududeeyay inay ka fikiraan inay dhaqaalaha Soomaaliya ka sameeyaan lama kala kama sameeyaan ay ka fikiraan sidii ugu celin lahaayeen ninka Soomaaliga oo lacagta leh wax laga yaabaa guri 2 milyan oo doolar inta dhisto guriga hor uu degan yahay laamigiis inuu wasakh tahay ama mataqaanaa uu jajaban yahay inay marka inta isku xilqaamaan u yiraahdo ninka 1 milyan oo doolar guri dhisanayo waxba kuma aha gurigiisa hortiisa inta nadiifiyo uu xaaqdo dowladana mas'uuliyadda ugu saaran dowladda ay saameynaysaa inay dowladda nabadgelyo ka shaqeyso inay dowlad heshiisiinta ka shaqeyso inay mataqaanaa kalsoonida iyo is-aaminaada heer mataqaanaa goboleed iyo heer federaalba ay dowladda ka shaqeysaa maxaa yeelay dadku waxay indhaha ku taagayaan adeelo Soomaaliyeed wax ka qabato nolol maalmeedkeeda taa haddaan la helin waxyaalo badan ba adkaanaya in la gaaro waan isleeyahay insha Allah kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan oo ah aqoon-yahan ka faallooda dhaqaalaha aad ayuuna u mahadsan yahay waxaan goordhow gudagali doonaa aragtida ay daawadayaasheena noo soo direen oo ku aadan su-aashaynu weydiinay ma kula tahay inay Soomaaliya diyaar u tahay sare u qaadidda dhaqaalaha dalka balse markan aan ku yara nasano qadar yar oo dhaxtaala daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duul xumi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku daraye
daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaya xijaab ku daraye damiirku maxuu yiri sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw damiirku maxuu yiri sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw damiirku maxuu yiri sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw damiirku maxuu yiri sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw دولة نمجوك يا عظيم موجودين
dalaliimaad u tahay calanka dalaliimaad u tahay deegaanka dabiibaad u tahay deegaanka dabiibaad u tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii mawduudi dintana garabaad u tahay calanka dalaliimaad u tahay calanka dalaliimaad u tahay deegaanka dabiibaad u tahay deegaanka dabiibaad u tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii mawduudi hagaag aan ka soo laabano qadarkaasi dhextaalka markan waxaan gudageli doonaa qaybta daawadayaasheenna fariimaha noo soo diray daawadaha ugu horeeya ee fariintiisana soo gaartay waxa uu ku bilaabay waa idin salaamay bahda s t n waa daahir oo jooga buuluxuubey haa soomaaliya diyaar ayay u tahay sare u qaadidda dhaqaalaha waayo soomaaliya hadda dowlad wanaagsan ayaa u soo iftiintay oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay kor ugu qaadi lahayd dhaqaalaha soomaaliya lana dagaalanto musuqa ayuu daawadahaasi fariintiisa ku soo gebagabeeyey waa daawadihii ugu horreeyey ee fariintiisa noo soo diray aan halkan ka aqrinay haddii aan eego daawado kale waxa uu leeyahay soomaaliya diyaar ayay u tahay sare u qaadidda dhaqaalaha waayo waxaa wax walba dowladdu ay ka qabatay waxa hagaag daawadahaasi haddii aan fariintiisa ku celiyey waxauu leeyahay soomaaliya diyaar ayay u tahay sare u qaadidda dhaqaalaha waayo dowladda ayaa wax walba wax ka qabatay sida la dagaalanka musuqa ayuu daawadaas yiri waa mahadsan yahay daawado kale waxa uu leeyahay s t n waan idin salaamay aadan calisow oo jooga baarwax anigu waxaan dhihi lahaa soomaaliya diyaar uma aha inay sare u qaado dhaqaalaha maxaa yeelay dhaqaalaha waxaa sare loogu qaadi karaa hagaajinta hanaanka maaliyadda iyadii ayaana isqabqabsi ka jiraa marka waxay la tahay in aan diyaar u ahayn sare u qaadidda dhaqaalaha mahadsanidin ayuu fariintiisa kusoo gabagabeeyey waa uu mahadsan yahay qaybihii dhexe ayaynu soo gaarnay waa daawadayaasha fariimaha noo soo diray daawadahan haddii aan kusii socdo waxauu leeyahay bahada s t n waan idin salaamay waa fatxiyo oo joogta jowhar anigu waxay la tahay soomaaliya inay u diyaarsan tahay sare u qaadidda dhaqaalaha wayba dowladda federaalka soomaaliya ayaana ka shaqaynaysa sidii sare loogu qaadi lahaa dhaqaalaha waddanka daawadahan fariintiisa waxa uu ku bilaabay waa faadumo ku sugan baydhabo waxay tiri waxaan qabaa inay soomaaliya sin diyaar u ahayn sare u qaadidda dhaqaalaha sababtoo ah khilaaf ayaaba dhexdeeda ka jira ayay tiri way mahadsan tahay daawadahaasi faadumo lagu magacaabo qaybihii ugu dambeeyey ayaynu soo gaaray daawadayaal waa daawadayaasha fariimaha noo soo direen ayaynu akhrinaynay waxa uu daawadahan leeyahay waa cabdi xasan oo jooga galguduud anigu waxay ila tahay inay soomaaliya diyaar u tahay sare u qaadidda dhaqaalaha balse waxaa jira dad aan ogoleen horumar kuwaas ayaana ah caqabadda insha allah guul ayaan u rajaynayaa waddankeenna ayuu yiri waa mahadsan yahay daawadahaasi daawadaha ugu dambeeya ee fariintiisana soo gaartay aan halkan ka aqrinay waa halkan ka aqrinayno waxa uu yiri waa faysal muuse oo jooga degmada luuq anigu waxaan leeyahay haa soomaaliya diyaar ayay u tahay sare u qaadidda dhaqaalaha waddanka waxaana la joogaa waqtigii sare loo qaadi lahaa dhaqaalaha waddanka dowladda federaalka soomaaliyana waxaan kula dardaarmayaa ayuu daawadahaasi fariintiisa sii raaciyey inay ka shaqayso nabadda iyo xasiloonida ayuu yiri waa mahadsan yahay faysal muuse ayuu kaasi ahaa oo fariintiisa halkan ka aqrinay isaga ayaana ugu dambeeyey guud ahaan barnaamijka bandhiga ee maanta waxaan filayaa in bandhigan maanta waxyaabo badan oo idin xiise geliyey aad ka hesheen intaa bandhiga xiga ku kulmi doono nabadgelyo